midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka عروريو عرول تكو وضعودان midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka Araxton Health Organization waa urur maxalli oo ay ku bahoobeen dad muxsiniin ah. Ururkan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha caafimaadka ayaa safar u galay sidii uu soo ogaan lahaa xaaladda caafimaad ee ka jirta bariga fog ee Puntland. Waa subax Sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 14 Agoosto 2020. Goorsheegtaduna ay ahayd 5:00 aroornimo. waxaan ka ababaxnay hooyada Puntland ee Boosaaso. safarka iyagu waxa uu ku wajahan yahay deegaanada bariga fog ee Puntland. safarkan waxa hogaabinaya xubno ka tirsan ururka Araxton Health Organization waxaana xubnahaas kamid ah Dr. Sayna Maxamed Cali Shire, Dr. Maxamed Cabdulqaadir Yuusuf, Farxiye Saciid Yuusuf, Xafsa Ismaan Salaad, Safiye Maxamed Salaad, Sundus Cabdi Saciid. tiimkan oo kamid ah ururka Araxton ayaa u ambabaxay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen xaaladaha caafimaad ee deegaanada bariga fog ee Puntland iyagoo diiradda saaraya baahiyaha caafimaad ee ka maqan magaalo kasta oo ay tagaan. waxyaabaha ay diiradda saarayaana waxaa kamid ah indha ku haynta dhibaatada ay qabaan hooyada iyo dhallaanka, ka warqabka xarumaha hooyada iyo dhallaanka, tababaridda hooyo oo muliso ah oo u shaqayn doonta magaalada laga soo xulo. anigu waxaan hooyooyinkii magaalada Araxton waxaanu ka codsanaynaa inuu dhiso xarun caafimaad. tixgelinta baahiyaha ay qabaan dadka ku nool magaalo kasta oo ay booqdaan, kuurgelidda xaaladaha adag oo ay soo mareen hooyooyinka ku nool magaalo kasta oo la booqdo, xogta dhabta ah ee ka jirta magaalooyinka ku yaala bariga fog ee loo yaqaan gaariwaa. intaasuba waa xaaladaha ay diiradda saarayaan tiimkan oo ka tirsan Araxton Health Organization. safarka ay ku marayaan tiimkan bariga fog ee Puntland waxaa lagu tagi doonaa haddii Allaha awoodda leh ogolaado degmooyinka iyo magaalooyinka ku yaala bariga fog ee Puntland oo kala ah Albarako, Darjaale, Tuule Ciise, Dooxa Gaban, Timirshe, Xamurre, Buq, Xagar, degmada Balidhidhin, Xarago, Canjeel, Xijiijle, Tuurmasaale, Dharriin, Makadaan, Talal, Qurac, Daramadow, Kaatir Oodan, Sheebaab, Dhaadaar, Dasaan, Beelwacato, Gurur, Unuun, Dawaar, Qaanlaaye, Dhaankadus iyo Ceelgaal. magaalooyinkan iyo degmooyinkan ayaa ah kuwa loo kuurgalayo xaaladda caafimaad ee ka jirta. haddaba aan dib ugu laabto safarkeenii ka soo bilaamay hooyadii Puntland ee Boosaaso. safariyo socoto dheer kadib waxaa nabad nimi magaalada Albarako oo Boosaaso u jirta 150 kiiloomitir. Albarako waxay ka mid tahay magaalooyinka aan ku wajahanahay midda ugu horeysa, laakiin kuma hakan doono oo safarku waa uu noo socon doonaa. qaxweyne iyo xog waraysi kadib dadweynaha ku nool magaalada Albarako ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee ka jirta magaalada iyagoo ururka Araxton ka codsaday in ay wax ka qabtaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka.
kana caawiyaan sidii ay ugu dhisi lahaayeen xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka. dadweynaha Albarako ayaa sidoo kale sheegay in ururka markasta ay garab taagan yihiin oo ay wax kasta oo ay magaalada u qabanayaan ay wax ku darsanayaan. baahidayada waxaan hore idin ku sheegnay wixii hadeer baahidayadana waan idin sidaba kareynaa insha Allah. wax badan baan caafimaadka uga baahannahay waa sida la idin sheegay dadku xaamiladu ama jidkay ku dhimataa ama magaaladii ku gaadhay qalin ku gashay in badan baa caafimaad darro u dhintay lala gaari waayo. waxaa jira kuwa aboobta laga soo qaaday oo anagu markii halka marayaan ama kuwa mulay oo Ilaahay kala keenay ama ku dhintay oo hadii uu ku ruuy hadda meesha dugsiga qubuurooda yaallay. baahidayadu saasi ugu badan tahay waxaad naga geysaan baahidano dana anagu caafimaadka waa u baahannahay waa baan ibsayd malihin kinin malihin waxba ka malihin tuuladaasaan kinin u daaqeen waan ka soo qaadana waa barastamool muxuu ku qabtaa. barakaatu waa in salaamaya dhamaantiin salaanka bacdi aniga oo ku hadlaaya magaca kalkaalisada tuulada Barako waxa aan la kulmay dumaradii dhalaayay iyagoo aan haysan qalabka caafimaadka haddii ay tahay galoofis haddii ay tahay dhiig joojin haddii ay tahay foolkululeyso aan midna haysan haddii ay tahay kid gargaar oo umulisadu ay sidato aan midnaba lahayn. waxa dhacday umulisooyinka waxa la kulma wax qalab oo lagu baarano ma leh fiisidna ma leh waxa weeye marbu ilmuhu gudbanayahay marbu dabakeen yahay marba waxa weeye ay ku dhacdaa anagu aalaaba dhulkan hadeer dadka badana waxay u yaqaaneen qofka jimba ku dhacay bahasha la yiraahdo kalaamsiyaha xaaladaha oo dhan ayaa la soo dirsa dadkan waxa weeye tuuladan degan iyadoo aalaaba looga keeno dhul la yiraahdo gaariwaa oo ilaa ay qandala ugu shishayso ilaa iyo tuulooyinka ka sokeeyo oo dadka boos loo wada badanaaba halkaana waxa la caafimaad ayaan kala kulmin badanaana in u badan yihiin dadka jidka ku sii dhinta. waxa weeye waxaan ka codsanaynaa tiimka caafimaadka ururka Aragsan in ay arinta oo dhan naga saacidaan si degdegana ay noogu sameeyaan MCH balaaran umulisooyin iyo dhaqaadiir kulliba ay noo tababaraan. anaga xarunta caafimaad ka socoto oo noo timi ma jiro. dhageysiga warbixinta kadib waxaa noo bilaabmay safarkii waxaanu soconay 9 kiiloomitir waxaanu nabadnimi magaalada Dharjaale oo iyana ka tirsan magaalooyinkii aanu mari lahayn sidii markii horeba qorshuhu ahaaba waanu ku nagaanay si aan iyana ugu kuurgalno xaaladda ka jirta waxaana xogtan siiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Dharjaale waxayna nooga warbixiyeen xaaladda caafimaad ee ka jirta magaalada. aad baan idinku mahad celinaynaa ilaahay baan u mahad celinaynaa idinkana idin mahad celinaynaa waxaan meeshan wadankii waa yaal waa dhisan yahay laakiin wax shaqaale ah iyo wax caafimaad iyo wax daawo ah iyo waxaas midna ma hayno. waxaan idin weydiinaynaa inaad naga qortaaniin wixii baahiya oo aan u baahannahay. waxaan idin weydiinaynaa intay qaadi kardo meeshu intay qaadi kardo inaad noo sheegtaan. waxaan idin weydiinaynaa waxayuu hadii kugu hor leeyihiin waa hawl badan yihiin meeshan waxa jooga mujtamac badan baa jooga magaalada markii hadda dadka loo yeero 5,000 kor buu ka maraya baadiyana waa leedahay ummad badni degan tahay. waxaan codsanaynaa dadka idinku wakiil baatiin waxaan codsanaynaa inaan helo baahida caafimaadka inaanu caawino ka helo. anaguna waan soo dhaweynaynaa idinkoo ururka Aragsan waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada. marka koowaad waxaan u baahanahay goob caafimaad oo dadka ay haweenka dhibaataysan ee kuwa uurka la xaamilooyinka ay ku dhalaan ma lahan daryeel caafimaad oo fiican ma lahan. qofka hadii way foolanaysaa wax irbad fool kuleysaa ma lahan wax filan baa lagu xiraaya xataa ma lahan. qofti waxa laga yaabaa in iska dhiig baxdo in irbad haysan in awoodin waxay ku soo gadato. marka hada ururka tihiin Aragsan waxaan ka codsanaynaa dhammaan agabka naga dhimo inaan noogu soo kordhisan. waxaanu salaamaynaa qaybtan ka socota ururka Aragsan oo nala joogta hadan tuulada Dharjaale
kana socota qaybta caafimaadka waxaanu nahay reer Dharjaale waxa noo dhisan MCH kan aynu haddan joogno wax qalaba oo haddan u yaala ma aysan jiraanin rugtiisa way noo dhigsan tahay waxaanu ka codsanaynaa ururkan aragsan in ay ka qayb galaan oo ka qayb qaataan MCH ka caafimaadkiisa baahidayada oo ah in agabkii rugti noo dhisan tahay san agabkii noo ol sidii oo kale waxaanu soconay 16 kiiloomitir waxa alla la nabad keenay Tuulo Ciise waxaana kala qaadanay xogta caafimaad ee ka jirta magaalada Tuulo Ciise dadweynaha ayaa sheegay in halkan ay ka jirto xaalad aad u adag oo dhanka caafimaadka ah halkan waa garanaysa Tuulo Ciise la dhahaa inta idin muuqata iyo in hadda in ka maqan oo miyigan degan oo maaragtay miyiga degan dhinac kasta bayna ka jidaba lagu nool yahay la degan yahay insha Allah dadka meesha degan reer miyi bay u badan yihiin dhinacan hadda caafimaadka waa way maqlaan dabcan caafimaad baa jira iyo خطير باجي iyo healthy boss ilaa isbitaal laga gaaro baajir la iska dayo dawo la cuno iyo baajir laakiin iyagu ma arkaan oo ma timaado halka ma helaan isku shuban baa magaalo ugu dhow ayada roga caafimaad leh dhinacana timir shaba healthy leh meel maaragtay bar caafimaad wax ka sokaya malaha taasi 50 kilomitir buu jiraa tan 30 caafimaadka noocaas ay ka tahay wax agab caafimaad ah haba yaraatay meeshaan malaha paracetamol qofku goortu meelaha tago ka soo gato magaalo ama ba caafimaad u ah iyo daawo wax kale ma haysta marka sidada waa naatig wax caafimaad oo ka jira ma jiro waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxa weeyaan anagu dadka tuulada jooga baan nahay goob caafimaad ma lihin caafimaad ma aragno meel wax naga soo galaanin ma jirto dhaqaadiir oo noo timaada ama degmo naga caawinta midna tooni ma jirto degmo ahaan noogu xigta wax naga soo gaaraa ma jiraan waxa weey qofka xaamilada naga xanuunsata boosaan u qaadnaa ilmaha yar baa naga xanuunsata boosaan u qaadnaa yaani wax gargaar ilaahay mooyaane mid kale oo meel naga soo galaa ma jirto waa u baahanahay wixii aragsan ay noo qaban karto inay noo qabato laanu diyaar u nahay inaan ku soo dhaweynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ururka aragsan wax kasta oo ugu baahannahay oo baahiyaa oo jira haday tahay caafimaad haday tahay waxbarasho haday tahay biyo baahiyadu inta ku sheegay gudoomiyaha iyo gabadha idin sheegtay weeye wax kasta oo baahiyaa oo jira waa maxnoo qaban kartaan ku soo dhaweynaa in wax noo qabataanin xog qaadasho kadib waxa aanu u gudubnay magaalada Dooxa Gaban oo Tuulo Ciise u jirta 16 kiiloomitir sidii oo kale ayay xogta nasiiyeen dadweynaha Dooxa Gaban ayaa xogta caafimaad ee magaalada ka jirta nasiiyay aragsan waxaan ka codsanaynaa baahiyo badan baa jira xagga caafimaadka ilaahan darka beelay waxyaalo badan oo meesha macnaha ay muhiim u baahan tahay waxaan u tagnaa meesha la yiraahdo noogu dhow isku shuban haddii ay noqoto macnaha dumarka meel macnaha ku mulaan waxa loo aadayaa macnaha ama dhiig baxti noqoto boosaaso iyo meelahaas loo tagaya ama isku shuban baa noogu dhow marka hore haddii aad iyo aad baan dib noogu tahay hadda macnaha irbad ma leh wax daawo oo meesha macnaha meel kale aan ugu dhawaano ma leh meel kale aan macnaha aanu baahida aan u aadno isku shuban baa noogu dhow wixii macnaha ka sii sheeyana boosawaadina aan ayarnan ka helin meesha daawo macnaha hadda qof macnaha haduu macnaha wax xanuun ama dhiig joojin tahay ama maxmed jamin tahay ama inaan beerka beenay xagga maxaa ay tahay shuban tahay nina toona meesha male umrsa Dooxa Gaban baanahay waxaan u baahanahay waxa weeye ururka aragsan waxaan uga baahanahay de wax badan oo baahi aan u qabnaa baa jira waxa weeye waxaan u baahanahay amseed waxaan u baahanahay waxbarasho oo waxa weeye maxaan ku sheegay dhan
waxaan u baahannahay waxa weeye wax daawo la dhaho ma haysano oo mulisada way dhiig baxdaa waxa weeye wax qalab uma haysano waxa weeye cabashadaasaan leenahay هذا وحياة بدن وديو بنكو أركيو كوا وحكو قاضي وحوي إبدي محنكوش جاي يديك بحين ويدنتين وحوي أنو قلب أنو كجسوا سهر نماله وحنا نوقف ماله وحوي هولا بدن بنكو أرك دي بدن بنكو صومري ماشي إذا كله جيسان قوية مكة اللي بتوقع أركان وحنا ما يلا حصل أودل بنادى أما waxa isku shuban baan noogu dhawo marbaan umlisada daaweyna farsamadii waxa farsamo yaqaankii macna ciidino qalabkii weynaa waxa weeyeen hawlo badan baan soo maray waxaan soo dhaweynaa ururka aragsan caafimaadka waxa jira waxyaabo badan ee degmada ay u baahan tahay dooxa gaban sida caafimaadka waxyaabaha asaasiga oo loo baahan yahay sida MCH oo kaleeto meel hadii ay magaranaysaa umlisada iyo lama helayo meel ay wax loogu qabto waxa jira qof hadii uu bahal gaaro oo kale tad waxa noogu dhow meeshan la yaado waxa noogu dhow isku shuban oo qofku aadaya ama inta badan soo ama gaarin buu qof nafta ka bixisa marka meel lagu kaydiyo oo goob caafimaad bay u baahan anagoo safarka yagii halkaas ka bilownay waxaan sii marnay magaalooyinka Timirshe Xamure masaafo ahaan isku jira 20 kiiloomitir halka Dooxa Gaban iyo Timishena ay isku jiraan 22 kiiloomitir dhamaan waxa si isku mid ah uga qaadanay xogta caafimaad ee ka jirta magaalooyinka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay Aragsan Health Organization welcome soo dhawaada hadaan nahay xarunta caafimaadka Timirshe iyo shacabkeeda waxaan isku soo dhaweynaa gacmo furan waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin indhaynta iyo wax qabadka aad loo timaadeen inaad wax ka qabataan rajaynaysaan insha Allah xarunta deegaanka caafimaadkiisa hadda wax mushkilo oo horta aad weyn ma jiro laakiin xarunta caafimaadka gudaheeda waxyaabo badan u baahan tahay baa jira waxyaabo u baahan tahay ka organization ahaan naga caawinaysan waxa kamid ah sida suuliyaasha laba saddex suul wala oo in helo waa jeclaan lahayn waxa kale oo kamid ah in la helo guardian house guriga wardiyo degan yahay la helo waxa kale oo jeclaan lahayn in la helo iyagana meesha la yiraahdo stored keeper kaas health center saddex waxaan ka codsanayaa Aragsan ama aan ka codsanaynaa anagoo isku duuban anigoo matalaya shaqaalaha ama deegaanka dadka ku noolba waxaan ka codsanaynaa meesha horta ma sha Allah si fiican u shaqeysaa oo shaqadeeda agabyada wixii looga baahnaa way yaalaan kaliya waxa ka dhiman coachingki oo hooyooyinka ay u baahan yihiin talaalka TT-ga hooyadu ma hesho oo dhameystiran waayo ma yaalaba ilmaha yaryar aad bay u dhashaan meesha xarunta aad bay ilmuhu ugu dhashaan talaalna ma ka jiro oo way u baahan tahay iyadana taas meelayaal badan waa fiirnay laakiin wali wax kama aanan helin si toos waxaan uga codsanayaa marka Aragsan inay anaga noo aqbalaan codsigayagaas ah inaan u baahanahay coaching deegaanka Xamure waxa fadhiya marna warta kama hirgelin haday maamul tahay iyo haday hay'ad tahay iyo haday cid kale tahay wuxuu ka yahay ibir anagu inta marka la hadlo bagcad waan u haynaa hadii mid weyn oo isbitaal dhisay hadii mid health post dhisay iyo kullu bagcad waan u haynaa cid alla cid wax qabanayso oo ururka Aragsan waan ku soo dhaweynaynaa waliba wixii kaleeto oo maaragtay anaga nolol ka baahdo oo hadday noqoto contribution wax la yiraahdo oo ka qayb gala waanu ka qayb gelin annagu waxaanu reer Xamure waxaanu inay ka baahannahay hay'ad caafimaadaatiin caafimaadka ma haysanaba bataatanba farmashiye MCH isbitaal waxyaalo kale ma haysano waxaanu kana siiro dad badan baan nahay population iska danyara wayna soo dhaweynayna hadii Ilaahay mo oo aad noo timaadaan hay'adda noo timaada inaanu soo dhaweyno ammaankeeda iyo hawleeda sugno ayaanu ku talagelinaa insha Allah bidnillaahi kariim hadda waxa weeye oo waa markaan ka baqanayo ee dhowr nagu gaadh ayaamood marka kaleetana hadee waa iska dhalaanino rafaadkaas dhowrka ayaamood ku dhalaanino waa dhiig baxaanin ma aanu haysan dhiig joojin ma heli karo galofis aanu gacmaha gashan ma heli karo waxa weeye irbad lagu dhifto oo male ka teetar mala
waxba malaha faleenba malaha waxa aanu hadda kula tacaalo haba yaraate oo walaba laqaayaha ahaado goloofiska gacmaha la gashade ma aanu haysan waxa way sidaan soo fiirin wax ma iska xirna gacmaha iska xirna saasaan ku umulina haday dhig baxaan waa fooreyna teatarka ma haysan oo kaayda waa la carra waa qaadnaaba meesha noogu dhawaan u geysana kaayda ma ciduna waana ama waa qaadnaaba intaasi kadib waxaan ka sii ambabaxnay magaalada Xamure oo aan iyada xogteeda ku dameynay markii aanu soconay 13 kiiloomitir waxaan u leexanay dhanka waqooyi bari oo ay naga xigto magaalada Buq oo ah magaalo Ilaahay ku manaystay khayraad dabiiciya markaanu dhex tagnay magaalada waxaana soo jiitay bilicda magaalada waxayna leedahay dooxooyin dooga iyo biyo qulqulaya oo ka soo burqanaya il rabaaniyo oo Rabbi ugu deeqay magaaladan oo loogu yeero tuuladii cagaarnayd ayaanu sidii oo kale dadweynaha ku dhaqan waxay nooga warameen xogta caafimaad ee magaalada ka jirta waa iska jira meel bini aadan joogo jirro waa iska jidha waxa weeye wax walba waa yimaadaan dumarkii oo dhalay waa jira oo dhibtii ilmihii dhib ku arkeen ama ku dhinteen waxa jira waxa weeye qof bukaho hadii aanu hadba meel wala cararo mid baa bee soconaysa mid baa waxa weeye aan jirro isaga imanaysa maalin baabuurtu iska heriysantahay wadna ama boosasaan u dhigno ama meel kale u dhigno halkaasaan wax la ordayna la yiraahdo gargaar dadku way isaga baahan yihiin qof bini aadan waa baahan baahidana Ilaah baa koobi kara qof bini aadan qofka badhirgan karo wixii awooda oo naloo qaban karo misqaala darate wax yar baa ahaadeen waa u baahanna wixii aan weynona cid ku eedayn mayno Ilaah xaqiisa ka ahaatay waxa jira umulisooyinka hadaan umulsanahay gabar baa foolanaysa u kaalayana la dhaha waa u tagnaa gabadhaas waxa jidha hadaan u tagno uma helo suuf ilmaha lagu qabto uma helo galoofis uma helo irbadda hadiiba ifanba nabar gaaro qofku aqligu saliim ka yahay inuu maaragtay isku dayo inuu qodbi karo waa dhacdaa haddana wixii maaragtay qalabaha lama haysto waxa dhacda gabar baa loogu yeeriyaa 3 beer markay furanayso waa la qaadaya jidkay ku dhimanayso ama dhiig baa ka soconay waxa ka qabato mantaqa tuuladan waxa la yiraahdaa tuula buqcatooti waxa ku nool ummad badan baa ku nool ummadaasu markii dumarku umulo oo dhiig baxo waxa loo qaadaa boosaaso boosana waa garanaysaan waa 500 kiiloomitir ba ma aqaan ma hayo kulleys waa in badan meeshaas loo qaadaa ilaa 7 saac meel haasal sida ma leh irbada dhiig joojinta habad irbada oo dhiig joojina ma leh oo laga ma helo harti boos ma leh qofkii nabar yar gaaro waxa uu ah aydin waxa uu ah caleen shaah baa lagu shugaa tuuladan marka dadka noocaas oo inta la eg dadkaas la eg baa ku nool wixii marka caafimaad u wada oo wax la qabanaya oo dadka wax la qabanaya anagu waa soo dhaweynay anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa arintaas hadii aad wax noo wadaan qoladiina tiimkiina hadda loo yimi haddaad dad wax nal qabanayo oo dadka wax u qabanayo dadka inta la eg oo aan lahayn aydin ama xabad waxay tahay xumad dibiya laga ma helo barastamol baa ugu yar oo ma leh xataa farmashi bareefada ma leh wixii marka caafimaadka wax nagala qabanaya anagu waa soo dhaweynay intaasi kadib waxaanu dib ugu soo laabanay wadadii aanu markii horeba soo marnay waxaanu u sii ambabaxnay dhanka bari markii aanu soconay 24 kiiloomitir waxaanu nabadnimi magaalada Xagar sidii caadada noo ahayd horay ayaan ka bilownay oo koorgelida xaaladda caafimaad ee magaalada
xagar dadweynaha ayaan arintaa nooga waramay MCA iyo hadii ilaahay waa ku ruuy hartiboos midna ma lihin guryahaanu ah guryahayaga yaalin daawadaan dirsanaa meel kasta wixii kaalmo nooga imiyaya guryahan joognaan ku wacdo laakiin kuwa aan hadii maamulo kale wax nooga hay'ad wax nooga qabteena ma lihin mana yaalin meesh laakiin guryahayaga hadda daawadu waa taal guryahay taal insha Allah anaga isku qabad urur isku kaashaday baan hadda guryaha ku dhignay oo ay yaalin hadii ilaahay wax qabadkiina ka baraarujintaad noo sheegteen aad iyo aad baan idinka habaliyo celinayna wixii wax qabadana hadii maadaama aad noo timaadeen rajadaas awal ma aan qabin hadda insha Allah ilaahay haydan la qabto waa ku talagaleynaa wax la yiraahdo gargaar soke oo ka jira halkan oo loo isticmaalo halkan wax daawo ah oo meelaha noo taala farmashi hadii leeyahay way jiraan laakiin wax daawo ah anagu hadaan isticmaalno meelaha noo taala ayo aan haatan yani ma jiro waxa ka jira cudurrada shuban biyoodka ka jira malaariyadu waa yartahay laakiin sambiri waxa yimaada qandhada iska soo noqdo malaariyadu waa iska jirjirtaa wax kan cooyin fara badan bay leedahay dadka maartay yani soo noqnoqda waxay leedahay insha Allah weede brokiintada ku badan anemiyada ku badan sida dadka difliga iyo ciyaalka iyo waxyaalaha noocaasa waxaa jirta hadii la ku roon yahay waqtiga aan joogno waxaa jirta xaalad ka sii adag oo wadanka jirta ma garan karo wax ka jira sababtu waxaan ku ogaano ma jiro waa ku soo dhaweynaynaa xagar inay ka howlgalaan oo ay ka qabtaan adeegyada caafimaad oo looga baahan yahay walow aysan jirin meelaha aad ku dhawaaqdeen health boss iyo MCA isbitaal iyo farmasi iyo midna toolna meeshan kama jiro lagamana yaqaan sida runta si kastaba ha noqotee idinka waxaan leenahay horta isku dayga iyo saxilqaanka yaraad samayseen aad baanu idinku ammaanaynaa waxa meesha ka jirta umulsooyin saas ma joogaanin waxa weeye hataa caawada waxa jirta gabar tan iyo habeen hore foolanaysay markii balliga agtiisa lala marayo umushay waxa weeye dhibaatadaas waa ka jirtaa waxa weeye awladda xanuunsato dhakhtar la geeyo ma u jiro macni burkeetooyinka iyo shumbiyoodka ku soo duulo wax lagu daweeyaa ma jiraan wax baaritaanna ma jiraan intaas weeye safar dheer kadib waxaanu u soo hoyanay degmada Balididin oo ka tirsan gobolka Bari qiyaas ahaana u jirta magaalada Boosaaso 270 kiiloomitir waa halkii aanu ka soo ambabaxnay nasasho iyo hurdo kadib waxaa noo bariyay waagii oo safarkayagii sidii hore waa iska bedelay waxaanu isku qaybinay labo maadaama aan ka koobnayd laba gaari iyo team ka kooban 10 qof dhulka aan u soconnana uu isku jiro masaafo aad u kala dheer ayna kala yihiin laba jiho gruubka koowaad waxa uu aaday dhankaas iyo deegaanada jecel waxayna u koorgaleen xaaladda caafimaad ee deegaanada jecel iyagoo maray magaalooyinka kala ah Harago Canjeel Xijiijle Tuurmasaale Dharin Makadaan Talaal Qurac Daray Madow Gaatir Oodan Sheebaab Dhaadar Dhasaan dhammaan magaalooyinka aan soo sheegnay waxaa si isku mid ah loogu koorgalay xaaladda caafimaad ee ka jirta tuuladan la yiraahdo af Harago dhinaca caafimaadka ilaahay baa naga kaalmeeya laakiin bini'aadam nagama kaalmeeyo ma fahamtay sababtoo ah degmo aanu ku xirannahay oo kaalmo ka helaa ma jiro dawlad aanu ku xirannahay oo kaalmo ka helaa ma jiro MCA noo dhisnay ma jiro waa damcanay inaanu dhisano MCA haddana tabarteeda waa ka gaabata hadda iyo dan waxa weeye idinka dhalinyartiinaan maanta noo timi haddaad tidhaahdeen degaankii baanu isu xil saaray inaanu baahidiisa ogaano waxna ka qabanno waa mahadsantay dhalinyaro fiican bas allah idinla qabtaan idinlena marka xiga waxaanu u baahannahay annagu wax kasta oo MCA naga kalmaysaan oo listaan waa u baahannahay xaggii dawada inaa markaa naga kalmaysaan waa u baahannahay haddee dadka yidhi MCA waa kan waa haawanaya waa dhisanay annaga waa naga fiican yahay laakiin annagu kama haysano anu niraahno maanta waa haawanaya wax noogu geey ma haysano MCA male hooyada iyo dhallaanka health boss male rug caafimaad central male
wax caafimaadku walqaamale male waa jiraan dhakhaatiir private ah oo iyagu yani dadweynaha dhex maraya oo la xiriiraya laakiin waa ganacsi haddii waa general wey ma aha wax bahalkiya wax ay ka socdaan macnaha dhinaca caafimaadka xaggiisa oo dadka qofka shakhsiyadiisa waxuu doono bilaash ha u bixiyo laakiin wax dadkii sidaas oo kaleeto arrimahan ka hadleen oo kaleeto la nooc ma marka aad baa loogu baahan weyn yahay xagga caafimaadka rugtiina ma leh dawadeedina ma leh qalabka shaqadana ma leh dad u tababaranna saan u malaynayo horta anu waa imada laakiin ma way jiraan dad u tababaran ma jiraan sida umulisada oo kaleeto waa loo baahan yahay ma leh umulisa ma leh islaama iyagu haddii isu xilqaamo oo ilaahay iska dhaqaalaha dhaqameedkii oo kaleeto ma leh umulisa u shaqa ururka salqaamo deegaanka ah horta waa salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat aragsan waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi horta meeshan waa baadiye oo madaxa ama dhulkeenaba waa ku yardhahay macnaha meelaha la yidhaahdo rugaha caafimaadka iyo annagu waxaan ii sheegaynaa waa ku talagalay inaan wax qabsanno horta laakiin wixii waa gaari weyn waa weeye meesha rugta macnaha MCH-ka ciidii iyo wixii lagu soo wiraa u haynaa waxna ayuutaya baan laanaha waxaan u baahannahay MCH inaan helo markii ay dhacdo waxaan weynay meel aanu ku dhalin ku umulino dumarkii qalabkii lagu umulin lahaa dhiig joojintii kulluba ma haysano hadday dhacdo oo wax way anaga dhibaatooyin badan baan la soo kulmay hadda ka hor waxa dhacday in dumar dhali waayeen waxa dhacday xataa inaan weyna gaari aan ku qaadno inay hadda dhibaato ku soo gaartay oo ay nabar ku soo gaareen kabacdina meel dheer loo qaaday dhibtaasna waxa keenay gaadiid la'aan iyo qalab la'aan iyo maxaan ku sheegay wax qabasho la'aan marka waxaan u baahannahay sida ururka aragsan waxaan ka codsanaynaa in wax dhibaatooyinka wax naloo ka qabto ururkiina hadda noo yimi aad iyo aad aragsan aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa annaga oo ka tirsan tuulada Canjeel arrinta aan nagala hadasheen oo caafimaadkana haddee caafimaadka waad aragtaan hadda annaga MCH meesha noogama dhisna meel caafimaad ruga caafimaad ma lihin wax micnaha wax naga caawinana ma jiraanin wax nooga keenana ma jiraan meesha noogu dhow annaga haddii ay caawa maanta ama foolo qabsato ama jaahisato baabuur ilaa 600 700 qaadanaysa baanu kareysanaa booso iyo balliga oo aan weliba waxba laga qaban karin oo macnaha booso iyo loo gudbiyo baanu ku dadaalaa intaas aanu muddo ku baarkeenna waxaan soo dhaweynaynaa 100% baanu soo dhaweynaynaa waana u baahannahay ruga caafimaad daawooyin wax macnaha agab wax kasta waa deegaan hadda xaqiiqda haddaan kuu sheego tuulooyin dhowr oo isku xiga waa deegaanka ugu mujtamac badan mujtamacaas joogana wax daryeel caafimaada ma haystaan gabdhaha sida uu faarax sheegana dadka umulaay kuwana ilaahay baa mar walba ilaahay baa u tartiibiya laakiin kuwana kuma dhibo kuwana waa ku dhibtoodaan kuwa ku dhibtooda dhibaha naga haysta waxaa ka mid a gaari degdeg ah oo kira ah waxaa ka mid a gabdhaha umulisooyinka ah oo dantooda iyo gurigooda seegahoo la qaado ilaa Carmo ama Boosaaso gabdhuhu ma aha gabdha tababar fiican qaba kaliya waxa waaye waa fisha dhakhtar iska aragtiyeed weeye oo iska hidda ah noocyadii sidii oran jiray waad baan u faraxsanahay haddaa leedihiin maanta tababar baan idin soo siinaynaa ayadana waxbay naga taraysaa inkastoo aanay intaas nagu filayn aan rabnay inaanu helo meel MCH ah oo daawadan loo keeno iyo dad khibrad u leh qaabka wax looga umriyo qaabka daryeel caafimaad inna lahayn dhibaha iska soo gaaraya oo iska dareemaysa ninna idinka sheekayn maayo sidii umulisooyin iyo heerarkaas iyo qof loo umanayo kafartu goodo ama dhaawac ka gaaro baan macnaha wax lagu daryeelo aan meesha laga heli karin alxamdulilah mujtamac dhambaana ku nool umulisooyinka ka mid a baanahay mactuulada Canjeel waxyaalo maaragtay caqabadana qabsadaa waa jiraanin umulisooyinka waa dhiig baxaan waa maqashaa ku raagta waa la marshayaa
baabuurtaa lagu qaadaa waddan dheer bay nagu qabsataa oo lacag badan bay nagu qaadataa wax maaragtay aanu ku joojinno ma helo qalab ma haysano aanu ku hagaajinno wax marka saasaanu ku joognaa waa ururka aragsan waxaanu ka codsanaynaa taageero maaragtay ay waxay nagu gacan qabtaanin baanu u baahanaa meeshaan haddeer ka soo hadlaynaa waa Xijiile Harti Boos Isbitaalkii qolada tan noo timi oo aragsan waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa in badan waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa qabadkooda aan ugu mahad celinaynaa isbitaalkan waxa la aasaasay 2006 wuxuu shaqeynaya haddeer baan u maleynayaa uu dhisnaa haddeerna waa 2020 14 sano waxaa dhici kara inuu 4 sano shaqeeyay si googoos u shaqeeyay inta ka dambaysa ma shaqeyn waxaanu codsanaynaa ilaahay baa horta taakula laga helaa subxaana wa tacaala laakiin wax qabadka dhalinyarada waa ku mahadsan tahay haddana isbitaalka waa khali lagamana shaqeeyo daawo ma taal wax kale oo dayactirna waa u baahan yahay daawona waa la rabaa wax qabadna in loo ku sameeyo oo meeshaan takhaadiir la keeno caafimaad ama umuliso ha noqoto ama daawo ha noqoto waxaan waa u baahannahay halkan waa baadiye fog oo waa ka fogtay magaalooyinka laami male qofka ku jirada baadiyaha waxa dhici kara in dhibo badan soo gaaraan oo safar badan soo maro ama gaadi awr soo saaro ama dhib badan soo maro wuxuu meelaha ka soo gaaro waxyaalaha waxay ka fudud yihiin si daciifnimo ku soo gaaro waxa dhici kara dad badan inay malakabood ka hor dayac u dhintaaneen marka waxaanu haddan codsanaynaa meeshaan in naloo dayactiro umulisana naloo tababaro daawona nala siiyo aan tayo leh oo meeshaanu ay shaqayso aragsan health organization marka waxaan jecel lahaa insha Allah qoladan inay noo fiicnaato oo ka noqoto magaranaysa kuwaas waxay qaban jireen wax ka fiican noo qabto umul aad iyo aad baa jira cudurro badan baa jira umulaha jira waxaa jira dad badan oo la caroon cudurro badan baa jira oo sanadka halka la sheegay qowracato iyo miyamaaqan qayb lagu bakhtiyeen oo markii dambeeto qaybna ay ka kaceen qaybna dhimatay lama tirin karo baahi weyn bay u qabtaa deegaan badan baa ku xiran meeshaan sida in cidoode walisoor meelahaas laga yimaada jecel oo dhan jecel qaybteeda dhexdaa soo madheen hadda aan telefoonka ka dhacayn waxaan aad iyo aad ma garanaysaa u soo dhaweynaynaa imaatinkiina iyo waxqabadkiina aad baad u mahadsantihiin ilaahay baan la gargaarsanaa goob caafimaadna ma laha gurigan muddo 14 sano buu noo dhisnaa waxa way 4 sano meelaha waa noo shaqeeyay hadduu noo shaqeeyay intii ka dambeysay annagu wax dhaqaale ah kuma qabno waxa weeye mursaynkana ilaahay aan la gargaarsanaa waxa weeye meeshada meel rafo iska fog waxa weeye dhibaatooyin badan baadiyahaas iyo fogaantaas baanu qabnaa waxaan idinka codsanaynaa umulisooyin goob caafimaad bismillaahi raxmaani raxiim tababar fiican ayaanu idinka codsanaynaa tuulada Tuurmasaale waa Tuurmasaale tuulatan waxaa la aasaasay 8 haddeerna waa 2020 weeye waqtigu intaa ma aanu lahayn anagu MCH iyo wax daawo keena sidaas dadku wixii la arko jirada ama waxa kale oo wax gaara oo jira ama jaba ama gabar fool qaadaysa ama si kale u bugta wax anaga noo yimaado ma aanu arag waa 8 ilaa 2020 weli sidaan ku joognaa farsamo ilaah baan ku joognaa waxa mar dawladna tadhay ama lacagna wataana taray ama nool caafimaadna tareen ma hayno weli haddaad noo timaadeen aad baad u mahadsantihiin waxaan u baahannahay MCH iyo alaabtiisa iyo dadka la helo wax ka qabta iyo sidaa wax noo tari kadhaan anagu sidaan u idinku warranay sidaa weeye meeshana intaasoo taariikhay noolay ma ilaha xarun caafimaad ma ilaha muxuuha daawanan lagama helo hadda haddii qof uu xanuunsado in boosar loola cararo mooyaane male baalki sideedana heli maysid gaadiid aad kula cararho haddaad aadan lacag haysan aadan haysan baalki gaariga qofka emergensiga qaadaya $600 $500 buu ku qaadaa
muxuaha hay-aduhu nooma yimaadaanin muxuaha haddayna yimaadaanin waxba nama taraan been iyo kadaabnimo iyo waxbay sheegaan waxay daraan bay qoraanin hadhowdana darisyada ka tuuraan for example hadda haddaan idinka sheekeeyo caafimaadku aad buu liitaa hadda dad badan baa ku dhintay maxaa dhintay dadka dhintay maxay u dhinteen caafimaad lama u dhintay waxaan ahay murba caafimaad 3 bilood tababaraan soo qaatay marka aniga qalabaan ku shaqeeyo ma hayo daawo waa tababar waa soo qaatay kan wali qalab ma shaqeynaan لكن هبرها أملسها ولا شقية ولا قبتها لكن قلب هذا هيستو عن كل شقية ما هيستو مير اسماء ما هيو داول اللي مكانين اللي كان شغال حرفة وصوب برتان أورك أركسن تاسني وأورك أركسن فهو السنة يعني إني يهول قليان أغلب كل شقية إيه كنا marka waxa ka weydiinaa ay case aad ku dhawaysay masaale ama umulooyinka la caawsay oo kugu naxdinta badnaa oo yani oo dhibaato kala kulantay maxaa kamid ah hooyooyinka umulisay degmada Tuurmasaale waxa kamid ah hadda mandhow goorba qool qaaday gabadhii muddo waxaan gaar lagu qaada ma lahayn MC ma leh muxuu haanade markii qalab markii dhig baxdana bad joojina ma lahayn kinina ma ahaysan wax ku taakulayna ma haysan ما هيسنو وعافماد نوعي هذا ما هيسنو أمورها هذا شيء جاي ما هيسنو تمركو وهذا يسكون إنتان ويسكون إنتان ها المها ويسكون إنتان بل هذا كرو واي ما يدولك وحلا قبان كرو لا ما قاري كرو ما قرت مركب وح على الدين عافمادك وح عنو كايسنا مجو وح على الدين علو أما حاجة ملسوينك ama xagga dadka bahal ku cunayo ama dadka sidooda u jiranayo anigu halsaaka guri baan ka imi haweentaan ka imi ma miyir qabin meel aan u cararo iyo meel aan u xirkadana midna ma hayo marka dhibaatada noogu dari horta waa caafimaadka caafimaad waa kamid maya caafimaad xagii ha u kicin caafimaad xagiisa ha u kicin ama umulsa aato ama daawaha aato ama dhakhaatiir aato ama yani waxbarasho aato ma u kicinba ma ha u kicin xagga midda hore waxbarasho ma haysano umulsa ma haysano ma fahanti meeshaasaan joognaa gari go'an weeye jid ma leh jidkaa xunkayaa soo madheen weeye magaalo boosaasaa noogu dhow iyo dhakhtarnimo de waa kaa in wax naloo qabtobana waa rabnaa intaa laydin sheegay weeye caafimaad ma haysano haddii umulisa ma haysano cusbitaal ma haysano waxbarasho ma haysano hay-ada waa arki jira waa iska badan yihiin sanadkii 2 jeer bay noo yimaadaan waxayna yiraahdaan waxbaan idin qabanaynaa cusbitaal baan idin sameeynaa umulisaan idin sameeynaa waxbarasho idin sameeynaa ma arag niyad jab xagga hay-ada ay naga jira niyad jab baa naga jira idinku si urur baad sheegteen hay-ada kama soo jeednaa tiraahdeen ha hadda wax noo qabanaysaan kuwiina taageero wax noo qabto ilaahay u aqbal Allah idinka dhigo laakiin waxaan u baahi weynahay waxbarasho iyo umulisa caafimaad iyo bukaanka intaa weeye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waa mahadsantahay waan idin fahmay waxyaabaha u socotaan waana ururkiina aragsan waa idin fahmay haddaan ka hadlo baahidan haysaahay baahida iyadana haysaahay waxa oo caafimaadku wax la koobi karo ma meeshada dhakhtar ma joogo mise ejma leh meelad wuxuu carado ma leh qofka inta la sii sido haddii uu qofku si kale inta la sii sido baaba haddii uu waqtigiisa kula hadar gabar baa maalin weyn laga soo qaaday in cidooda laga qaaday 2 gabdhood goorta bartamaha la wadaay baa mid nafti ka baxay meydkii baa la isu geeyay iyo tii noolid baa wax la isu geeyay meesha la isu geeyay meesha la Tuurmasaale haddii dhib ku qabsato ama caafimaad u baahato ama bahal hoose ku cunto ama wax ku cunto meel ula cararto oo dhow oo la agto male waa iska sugnaa wixii ilaahay nala kudmiyo baan iska aragnaa dhakhtarna ma aanu aragno noomana yimaadaan haddii mid bareefadi noo yimaado waxa weeye ateena la'aan buu naga cararaa wuxuu yiraahdaa halkan ateena ma lehe ateena bacdalkan lama soo maraan mar hadday yimaadeen mar bay noo yimaadeen 2 sano marba wiil noo yimi mid walba ateena la'aan buu kaga carara ilaahayga baa meesha nagu og
هذا اللي هو اخترنا ما هيسنو هذا اللي هو داونا ما هيسنو بلدين بانو قدو بلدين بانو عرفها أما هذا اللي هو أنا كان أما أتين كاسون كبحنايو شغالها جوجا بان وقيلنا وحنا نبتاسان هيساي وحيشانين وإحنا لسه جار هدينا لسه جارنا وسكعوا عرقنا هدان ماشي وحولين ينا هدروا مالك هدان وحولين وحيان ماشي وحهم يالي وهدنا عافماتك باهيدو وبدنتا أتينا ما هيسنو هذا اللي هو يا بحان كو إيرهداي قفك هذا اللي هو دبي gaarto هذا اللي قاعد wax ku soo gaari maayaan ateena waa fogtahay burahaas laga baxaa aroradaas laga baxaa timankaas laga baxaa tii dhaadaroodna nooma timaado aroradaas laga helaa tii xaragona aroradaas laga helaa dhakhtarna nooma iban maayo ba nin lacagtiisa dil ku roon hadii daawadiisa gato lacagtiisa inuu helaa u baahan yahay moogtaa qofan daawo sidoo lacagtaada ku dhiiqsiinayna daawadaada kuma ba aamini karto aad marka anagu sidaas aanan dhakhtarna u haysan daawona u haysan nolosha ilaahayga baan ku roonahay anigu waxaan ahay adil ku habartii tuulada inta tuulooyina kan habartoodii baana umlisadoodii baan umlisa raqameedkeedii baan maalin dhoweed waxa igu dhacday naag baa foolatay waa la iigu yeeray markaan irtka ka soo galay oo islaantii sa u jeedaashay baan waxaan yiri heed ilmuhu ma laba meesha ku jira naagta caloosha intaas ma laba ku jira mase ilmuhu wada wakeen saalim ha aragtay sana caloosha inta leeg baan arkay aruurtii waxay isla soo galeen meeshii ilaahay ay ka dhalan mid u dhalan lahaa cago iyo madax baysa soo galay laba ahaay cago iyo madax baa la soo galay kii madaxa la soo galay meeshii ku baqtiyay kii cagaha soo soofay dhaqmeelad u qayliso haddaad goortaad qayliso tiraado dhibta tanaa jirtee hala meel la gaadho male ateena male aad ka hadasho male wuxuun baa soo gaari lahaa haddii ma ogtahay goortaas aan arkay gabadha arkay sida ay tahay aan arkay haddii aan goortaas haysto telefoon haysto oo balliga la hadlo gaarigu way soo gaari lahaa ilaa gabadha subaxnimadii baan u tegey subaxnimadii baan arkay 9 saac galabnimona waa dhashay marka caafimaadka iyagu saas uu yahay hadda la ku ruuyo wixina waan u hadlo u baahanahay waxna yimaaday wax daawo noo keena iyo waxna la soo xiriira intaba u baahanahay laakiin hadde waxa weeye hadda say meesha u iman lahaayeen hadda ka hor nooma imane khayr baa qabtaan khayr Allah idin siiyo hadda waxna soo gaarsiinaysaa ururkiina aragsan wadin salaamayna annagu ururaba ma arki jirin waxba ma arki jirin walaa bisha casma aragno walaa muxuu ahay UNESCO iyo UNDP iyo muxuu ahay ururadaas oo dhan kuwa dawlad iyo kuwa maxalli iyo kuwa dawliya iyo kuwa United Nations iyo midna ma aragno annagu waxaanu iska nahay dad meelaha iska jooga intii dowladda dhacdana waxba ma arag caafimaadkana waxa loo aadaa garowe boosaaso xamar oo turkiga ninkii lacag loo qaado balliga noogu dhow meel daryeel caafimaad oo xoogaa hadee wax laga hadee aqoontu way iska geedkii laakiin dab balliga noogu dhow marka way salaamayna hadda annaga baahida meesha MCH male caafimaad male farmasiyaal ma yaalin xuma yaalin muxuu ahay ururo kale to annagana soo booqday ma aan hore u aragnay ma jiraanin hadda way salaamayna naga wargeeyo waan aragtaan meeshan joogno xataa ateenada male waxba male marka ateenada ilaa turmusaale ilaa maagaatir oodan inta ka dhaxaysa ateena male iyana dhibaatadaas ka ay isugu fideen meelaha waa deganahay way iska caafimaad qabnaa guud ahaan dadku hadee dad burseel qaba iyo dad dhiikar qaba iyo dad sukor qaba iyo dad nin walba waxbuu qaba jirooyinku way iska badan dad faaxa ku jiraanin ninkii lacag la waa la qaadaa ninka kale si hadee waxa weeye waa geedka u tuur weeye marka way salaamay waa salaamaya ururka aragsan booqashada ay noogu yimaadeen waa ku mahadsan yihiin annagu waxaanu nahay dadka deegaanka talada u dhashay magacaygu waa Maxamed Gaashe waxa aan hadda deegaanka u baahan yahay ama aadka loogu baahan yahay waxa kamid ah daawooyin FCH goobo caafimaad oo ku dhow ma jiraan aad baan u salaamayaa ururka aragsan warbixinta ay naga duuftay waxa kale oo ay waxaan ka codsanaynaa in daawooyin iyo caafimaadka in ay wax nooga qabtaan
sidoo kale goobaha caafimaad oo daawooyinka laga helo sida FCA oo kale baaritaanka caafimaadka dhakhaatiirta anagu baahida iyadu waxay tahay horta ateena malihin oo meelna dadka kan tabarta yar meelna kaba hadallo oo arla sareeto aa soo madheen baa noogu dhow mana gaari karo qarkaas male inaan hadallona waa jecel lahay oo dadka la hadallo iyo dal iyo dibadba wixii naga maqan la hadallo mana haysano baahida kaleeto ma helo oo caafimaadka hay-adaha caafimaadka ma helo mana aragno waddankayga maba yimaadaani ha kuwa caafimaad iyo kuwa deeqda bixiyo midna ma aragno oo maba aragno anagu oo qarkaasaan iska joognaa ilaahay nagu ogyahay mana helo wixii tabar darhina maba socdaan magaalana ma gaari karaanin ateena ma gaari karaan meelnaba uma socdaanin waa wax tabar gabay marka saasaan baahi walba u qabnaayo ugu baahannahay in wax nala soo gaarsiiyo nala arko annagaaba jecel wixii nagoo qaban karo baahiya caafimaad ma helo annagu ma helo waxaa noogu dhow balligii iyo boosaaso haddii qof naga jirto halkaas galaa laga saara ma haysano inaloo dadaalaan rabno ma leh waa la qaadaa waa iska dhalaan ilaahay waa dhalaan balligii baa noogu dhow dhibaatooyinka kala kulantaan maxaa ka mid ah gabdhaha markay xilliga foosha waa iska mid baa la qaadaa mid meeshada ku dhashay wax walba ale adduun weeye tiiraha u fududeeya waa iska dhashaa laakiin annaga waxaa socda oo caafimaadka iyo hay-adaha kale waxaa shaqa kuma lihin annagu wixii ilaahay naga siiyo aninta aanu idinku darimayno wixii ilaahay naga siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسنتين سيدا وقصوا غيب قشين ونوغو تمادين دالكين دادكينا سيدا وحقوق من لهايدين أنك هذا عالد عافي ماضي ودالك نقوى ريستين ميشة وإسكام ملايين إيسانين انت يوجد بوساسو مقالة وحا أقول هذا قف لقين كرو تولد بلغة انت ينوجدون واركتين وانا صومدين حالد عافي ماضي ودك وإسكتالا دبينا وكجرتا reer guuraaba magaalada ku teesan oo darfaha naga jira marka qofka xanuunsada waa la soo fuuliyaa ratibaa la soo saaraa ka bacdina halkana la keena gaari inta la sugaayo halkaas uu qofku jooga qofku hadduu qof ama xanuunsan yahay ama qof umulaysa ay tahay ama qof dhaawacan yahay rafaad iyo dhib baa lagu qabaa deegaanka dadka degani marka nimayo waxaan idin leeyahay haddii wax qabad laba dalka uu ka jiro waa dalkiini waana idinku soo dhaweynaynaa waana ku mahadsantihiin sida uu idin sheegay wiilkaas waxa weeye haddii qof dhaawacmo kii dhintay laba asilaahay haddii gabari umulayso haddii qof dhaawacmo kullu baadiyahaas buurtaa sidaa arooska loo aaday baa dadkii u jiraa xoolo dhaqato baanu ku xirannahay baadiyaanu ku xirannahay magaalooyinka annaga wax saasi nagama soo galaan MCAid ma lihin laan caafimaad ma helo balliga baa noogu dhow kii gaws laga soo bixinayo balligaanu geynaa sidaas oo darteed aad hadda maanta aad naga waraysaaniin hadallada noocaasa buurtaasaa dadkii naga saaran yahay waxa weeye xanuunadu waa jiraan kiniini ma helo caafimaad kale ma helo MCAid ma lihin diya lakuu roon yahayay haddee sidaa haddii aad wax noogu qabanaysaaniin waa ku mahadsan tihiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin بسم الله الرحمن الرحيم aad baa u mahadsantihiin ururka caafimaad ee noo yimi alagsan oo meesha noogu yimid tuulada gaatir waxa weeyaan warbixinta aanu sheeganayno oo waxa weeye hadda anigoo ka mid ah odayaasha tuulada waxaan rabaa inaan insha Allah aan inii sheegno tuuladu horta waa tuula dad jooga oo dadku waa ku badan yahay kuma yara wax MCAidna ma leh حتى محوها فرماشي بقى ويا رمله تدكنا واجوجان حنون ذو اسكت جيران تدكوا حنون سيين لكن كل يبدأ حنون دب لغة وقاد لوجي فمجرو إن شاء الله أنا وحويا وربحنتها نسينا والنوعة وحويا هدي عافماتك أدبا لغوبة هي وحويا عافماتك ومهم وأنا مهتسنتهين وعن ربا إن شاء الله سيدا أقول أقصى بدن وأدهلي كرتاني نوغة بطان oo ma garanaysaa
annaguna saasaan insha allah ku soo dhaweynay qoladina caafimaadka ee noo timi aragsan waan salaameynaa 114 quraanka kariinka waxaanu ka cabanaynaa baahiyo badan oo ay tuulooyinka aanan kala mid ahayn sida amseejyada oo kale annaga amseej meeshayadu male caafimaadaduna waa yimaadaan qolooyinka caafimaadka daawooyinka bixiya way yimaadaan annagu wada la sii maro oo kale baanu nahay wax daawo ah naga soo gaara ma jiraan marka way soo dhaweynaynaa idinka oo qadariyay oo noo yimi macnaha tuuladeedii oo gaatir aan wax amseejna lahayn wax caafimaad oo laga qabtaan ay jirin ka tahay macnaha bahalka la dhaho farmash marka way salaameynaa 114 kan idinku salaameynaa salaameyna 114 quraan kariimka idinku salaameynaa bismillaahir rahmaanir rahiim walisooyinka iyo waa eeshiyada umalisa male qaabka lagu umaliyana waa ku yar yihiin oo dadkiiba waa weynha dadkii yar yarha iyo waa naga maqan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ugu baahanahay walisooyinka iyo qaabka umalisa lagu baahdo iyo lagu ilaahdo iyo insha Allah aad baan ugu baahanahay marka aad baan u mahadsantahay wayna salaameynaa 114 kariimka idinku salaameynaa aad baan idin salaameynaa meeshaan shabaab dhaadaar tasaan aaggan oo dhan waxa la isku yadaa dhaadaar xataa waxa ku dadha gaatiroodan muddo 4 sano wax adeega hadduu caafimaad yahay iyo hadduu nooc kale yahay adeega tuulooyinka ama degmooyinku helaanin maanu helno waxa sababana waa ka dherigsan tihiin hadeerna anaku imaatinkiina kan waxaanu isleenahay yacni waxaa ka qabsoomi doona ilaahay baa yaqaan laakiin aad baanu ugu faraxsannahay waa idinku habbaliyaynaynaa isxilqaankaad isxilqaanteen waxaadna tidhaahdeen dowlad iyo hay-ad iyo cidna soo dirtay mooye ma jirto annaga aysa soo xilqaanay wixii kartidayada iyo ilaahay fadligiis aanu gaari karana waan qabanaynaayo dhulka kan haddii dadkii dowladdii ilowday oo dadkii kale iloobay oo hay-adihii iyo waxba ay suurogeli waayeen wixii aanu suurogelin karro aanu suurogelinaynaa wixii aanu suurogelin karro baanu suurogelinaynaa aad baanu ugu faraxsannahay waana idinku habbalyaynaynaa waana idin ducaynaynaa waxaanu leenahay insha allah faayisiin fayfool insha allah faayisiin foolaye insha allah faayisiin baanu idin leenahay السلام عليكم وحوي يا دكتور ميسو اسبitaalna ma leh baalkii meel daawaana ma leh waa meel aan waxba aan lahayn xataa kalkaalisan ma leh waxa weeye qofkii habqowdha haddii umusho ama foolato waxa weeye baabuur baa lagula cararaa qofku maarata hadduu baalgaaro oo wax soo gaaraanin baabuur baa lagula cararaa meeshatan wax alla wax caafimaad leedahay marka hore waan salaamayaa dhammaantiin ururka aragsan waxaana leenahay insha allah aragsan bacdayna aayasan insha allah kadib insha allah saasaan insha allah leenahay waana idinku faraxsannahay sida adeer idin sheegay waayo waxa weeye dad deegaankiya oo magaranaysaa insha allahu tacaala dadaalaya oo magaranaysaa ay tahay magaranaysaa arrintoodu inay magaranaysaa dalkoodii iyo dadkoodii wax u qabtaanin marka insha allahu aad baan marka hore ugu faraxsannahay marka labaad waxa weeye meeshaan dee warbixinteeda markaan insiiyo deegaanka gaar ahaan deegaanka shabaab oo aan hadda joogno ma laha wax ma garanaysaa adeeg ah ma laha oo dhinaca caafimaadka ah waxaan salaamayaa dhalinyarada noo timi oo ka socota ururka caafimaadka aragsan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi waxyaabo badan baan na weydiisan oo aad ka hadasheen waan u baahannahay waxyaabaha aad ka socotaaneen imaatinkiina aad baan ugu faraxsannahay ma haysano goob caafimaad hadda oo idinba wada aragtaanin oo maanu haysano goob caafimaad umulisa dhaqameed maaha haddee iska ilaahay wax ka sugaysan maaha umulisa macnaha aqoon wax ku wanaajinaysa ama macalinimo ma lihin cusbitaal ma lihin amseed ma lihin wax alla wax meesha lagu hayo oo yaala ma jiraanin
annagu waxaanu nahay dad reer baadiye ah masaakiina meeshaana waxaa jooga waa dad liita oo reer baadiyaay oo dhowr neef iyo ku haysta oo kici waayay oo odayaal iyo habro iyo caruuro iyo xaasas iyo weeye baahidooda baahi bini aadan leeyahay oo dhan waad garanaysaan weliba baadiye jooga oo meel geri go-ana xaasasku waa uroobaan umuliso ma leh kantarool meel laga kantaroolo oo wax laga kantaroolo ma leh dhakhtar weyn oo si fiican wax u yaqaan oo meelaha jooga oo daawadiisaba ha gadanaye ma jiro qalab wax lagu qaadaa ma jiro waxa aanu ku nool nahay waa baadiye baadiyana waa baadi marka wax alla wax aanan u baahnayn ciddii wax u qabanaysa oo noo qabanaysa ma jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما هو سلام انتين مسجوك سلامك بعد رجينا نويبي يومك وحوي نويبي وإن شاء الله سمفلك يدقانك وسعدي وحوي ويد سود ويننا وريد السلامين كبعد دقانك وبلارين دقان بلارين ويصوم وأركتي haddan deegaanka baahidiisuna way badan tahay laakiin haddan waxa aynu ka hadlayno waa noo sheegteen waa caafimaad deegaanku marka caafimaadka baahida caafimaad waa ka liidanaa goob caafimaad ma leh umuliso ma leh baabuur caafimaad ma leh daawo ma leh baahida daawada aad iyo aad bay u hooseysayaan ugu liidana waxaa ugu daran oo idinkuba aa ogtihiin waxa weeye gabadha halkaa fooshu ku qabato boosaasuba baabuur geynaya waxay mudan tahay ilaah baa yaqaan baabuurkaas intee la soconaya baahida caafimaadka hadday aan ka hadlo horta marka ugu horeysa waa salaamantihiin dhammaantiin shacabka meesha kasoo qabalay marka xigtada martida waa salaamantahay ururka aragsi ka socda salaam buuxda aynu ku salaameynaa marka xigta haddaan ka hadlo baahiyaha caafimaadka ee ka jira khaasatan midwiferyga ama umulisada waxaa jira horta anigu msh waa leena 2006 msh waa naloo dhisay shaqaalana waa la qoray oo way ka shaqeeyaan wayna joogaan shaqaaluhu wayna shaqeeyaan laakiinse shaqaaluhu way shaqeeyaan laakiinse wixii ay ku shaqeeyaan layahan lama haystaan oo ah dawadii iyo agabkii lagu shaqeyn lahaa midatoona meeshii ma yaalo waadna u jeedaan haddana waa aragtaan mchka waynu joognaa sooma marka umulisada anigu waxaan codsan lahaa horta umulisooyin loo qoro wax ka qabta nololna tababaro waayo umuliso meesha ma lahan umulisa dhaqameed maaha wax kale meesha kama umuliyaan hooyada uurka leh halkaasaa gaari lagaga qaadaa markii foosha qabato rafaadka marbay jidka ku dhashaa marbay kuwa dhimataa iyadu marbay ilmaheeda iyaduba kuwa dhintaan labaduba marbay rafaad iyo silictii ilaahay u qoray ay ku tagtaa boosaso iyadoo rafaadsan marka dhibaatadaas oo dhan baa jirta waxaan dhihi lahaa umulisooyin loo qoro qalab caafimaadna waan ka codsan lahayn ururka aragsan waxqabadkiinana insha allah ha muuqdo guriga idinku maanta aad joogteen gabadha guriga degan daraad baa meesha laga qaaday dhibtii ilmihii wuxuu ku meeday uurkeeda ku meeday meeshan ku meeday balligaa la geeyey balligay wiil meeda ku dhashay hadday ahaan lahayd meel mc ama dhakhtar leh ama wasaaradda caafimaad leh dhibtaasu waa guriga hadda gabdhuhu degan yihin qolkay degan yihin gabadha deganeed markhaanti waxa nooga ah idinkaa markhaanti nooga ah hadda waxaan u baahanahay waxqabad dadka iyo dadka masaakiinta wax loo qabto waxaan idiin sheegayaa adeega bulshada waa naga go-an yahay wax badan isagoo ah buu naga go-an yahay wax badan isagoo ah buu naga go-an yahay waxaan idiin rajaynaynaa idinku ururkiinni haddii aad ku noqotaan in ilaahay idin fududeeyo oo idinla qabto waxa aad nala jeceshiin idinla qabto annaguna aanu idinka ducayno idinkana mahad celino rabbi subxaana wa tacaala oo idinla qabto haddii aad wax qabataanin waxqabadka aad qabataan oo noo keentaan wix alle iyo wixii naf iyo maal baanu ku bixinaynaa juhdi baanu ku bixinaynaa dheeriya xoog baanu ku bixinaynaa xoolaanu ku bixinaynaa soo dhoweyn baanu ku bixinaynaa waa ku mintidaynaa sababta oo dhibaatada aanu aragnay wey oo gabdhihii idinla mid ahaayo idinka noociinaas ahaa
oo maanta umulnimada halkaa ku qabsatay meesha la geeyey waad aragteen dhowr iyo 10 baa baxay kama sheekayn karo qarkaasaa laga soo qaadaya halkaasaa la keenaya gaari ma joogo idinku gaari yar baa ku taantay oo la baxday ururka aragsan inay dadka maatada waliba dumarka iyo caruurta inay wax u qabtaan ururka aragsan oo caafimaad ka socda oo soo maray tubta dheer waan salaamayaa 104 quraan kariimka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha tuulada odayaasha nabadoonnada ditoorada ururka haweenka dhammaantii waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa 104 quraan kariimka bada salaam waxa weeye hadalan meel lama jiro oo waa inta odayaasha iyo nabadoonnadu ka hadleen isku aragti baan nahay waana isloognay arrinta tuulada ka jidha idinkuna waa nala aragteen waa nala arkaysaan waxaase sheegaya haddii aragsan ay kuwii hore tahay sidaa la sheegayo waxaan ilaah ka baryay inay kuwa ka bedelaan noqotaanin dadkii hore kuwa ka bedelan oo xataa tirniig noo keenaan dhagaxa noo guran waa qariibo laakiin samberi waxaa na badbeeday ama na hormadha ama nagu soo noqnoqota in naloo yimaado aan waxba naloo qabo la hadla odayaasha ka hadla halka wareegiisa badan macno badan ma leh mutaqaana meesha waa intaa soo mareen horta jacayl waa dareemi karaan intaa soo socoteen iyo rafaadkeeda iyo dariiq xumadeeda dhibaatada ugu badan oo ka jirta meeshana waa sida la sheegay waa caafimaad darro waxa weeye meelaha ku soo aragteen isbiis waa dhici kartaa iyaguna ma shaqeeyaan hadda wax ka shaqeeya oo tayo lama jiraanin waxa weeye aad baan u soo dhaweynaa caafimaadka waxqabadka iyo warkii aan naga geysanba waxaan rabnaa goob caafimaad hase ahaatee ma aanu lihin goob caafimaad mana lihin umlisooyin mana lihin gaadiid aan kula cararno bukaanka dee waxaan idinka codsanaynaa goob caafimaad gaadiid aan kula cararno kolba wixii naloo awood karo dhanba wasalaamu calaykum intaasi kadib bal aan u laabto safarkii deegaanada kale oo safarkoodu socday haddaan ka soo ababaxnay degmada Balidhidhin waxaanu soo gaarnay magaalada Beelwacato oo degmada Balidhidhin u jirta 28 kiiloomitir annagoo u kuurgalayna xaaladda caafimaad ee magaalada ka jirta bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ururka aragsan waa salaameynaa 114 aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shaqada ay soo gadaalka soo galeen iyo safarka dheer ay soo mareen anigoo ah gudoomiyihii Beelwacato Xasan Ismaan Maxamed waxaa ka jirta Beelwacato caafimaad la'aan wax la yiraahdo aad iyo aad baa caafimaad ku daran yahay dumarka sida gabdhii inay sheegeen iga horeeyay waxaa jira gabadh iyadoo oo fooranaysa inay weydo takhaatiir degdeg ah oo wax ka qabta in farsamadii hore wax laga umuliyo haddana ay moogtahay waxba laga qaban waayo bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ka mid ahay hooyooyinka Beelwacato ku nool kuna dhalay ilmo waxaana naga soo martay dhibaatooyin aad u fara badan wadanku goob caafimaad ma laha maxay ahayd guriga gargaar degdega ma laha marka dhibaatooyinkaas oo dhan baanu ku soo marnay waxaan u baahanahay aragsan in ay wax badan ka qabato caafimaadka waliba kan dumarkan anigu waxaan hooyooyinkii magaalada aragsan waxaanu ka codsanaynaa inoo dhiso xarun caafimaad lahayba caafimaad laakiin noo dadaashid waxa weeye meesha waxba kuma haysano caruurtii malaariyo caafimaad la'aan gaarigana qaada ingeerka waa gaariga waa dalbanaa wax ka dalbanaa unuun ama ceelgeel ama balliga markaanan haysan gaari waa dalbanaa 800 700 buu nagu qaada haddaanu xogta rasmiga ah ee caafimaad ka qaadanay waxaanu uga sii gudubnay magaalada Gurur oo Beelwacato u jirta 30 kiiloomitir magaalada Gurur ayaa si aad ah naloo ku soo dhaweeyay waxaana na soo dhaweeyay jiilka wax ka barta magaalada Gurur dhigtana iskuul ku yaala magaalada Gurur marxabayn iyo soo dhaweyn kadib dadka deegaanka ayaa nooga warbixiyay xaaladda caafimaad ee ka jirta magaalada waan soo dhaweynaa in badan meeshan aan ku soo dhaweynaa waa tuuladiina dadkiina iyo dalkiina weeye aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan idin sheegaynaa insha Allah meeshan tuuladan la yiraahdo Gurur waa tuulo soo jireena waa tuulo in badan waxa way dhisnayd insha Allah taala kama ay jirto waxa la yiraahdo sida hadda goobaha caafimaadka qoliyaha waxa way dhulka caafimaadka wax lagu baaro qalabka caafimaadka la isticmaalo guriga caafimaad laga ma dhisin wax isbitaal ma leh
MCH ma leh bismillaahi raxmaani raxiim haba u yaraatee qayb caafimaad wax hadda la xiriiro oo ka jira ma jirto dadka marka hadda dhib gaarto ama hadda sida dhaawac ama wax kale ugu dhacaan waxaan loola cararaa meel caafimaad oo loola cararaa si loogu dabiibo naftooda ilaahay waa mahadle keen isu keenay waxaan soo dhaweynayaa ururka Aragsan oo meesha tan maanta noogu yimi aad iyo aad baan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad ba hadalna hadeer oran maayo tuulada awlaheeda waxa ka hadlay odayaashii nabadoonnada iga horeeyay marka hawshu waxa weeye waxa codsanaynaa baahida tuulada odayaasha ka hadleen caafimaadka waxbarashada wax kasta nooc kasta u baahan marka ururka Aragsan aad baan soo dhaweynaynaa maanta ay si fiican noogu yimaadeen horena noogu iman jirin marka sidaa darteed baan soo dhaweynaynaa wixii wax qabadan ugu baahanahay isxog waraysi kadib waxaanu isu diyaarinay qado waxaan damacsannahay in aan ku hoyano magaalada Unuun oo gurur u jirta 25 kiiloomitir habeenkaas waxaanu ku nagaanay magaalada Unuun qorshahayaguna waa markii uu waagu beriyo oo aan bariidino in aan u kuurgalno xaaladda caafimaad ee magaalada Unuun waa hadii ay baraali ka noqdee ururkan teamka nooga socda ururka la yiraahdo Aragsan Healthy Organization teamka nooga socda aad baan u soo dhaweynaynaa waanu mahadcelinaynaa bacdallaahi ilaahay mahadis ha gaarto aad baan soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo laab furan iyo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa insha Allah ninka la yiraahdo Mursal oo isagu member sarka ah mar walba oo nala socday Mursal Ismaaciil aad baan u mahadcelinaynaa inta laga hadlay baahiyihii waad maqlayseen oo laga hadlay nubulsooyinkii iyo dhaqaatiirtii iyo nabadoonnadii waa ka hadleen waxna waa noo dhiman yihiin odayaal kale iyo dhaqaatiir kaleeto inta la yiri baan anigu la qabaa meeshu meel caafimaad ma leh ama meel la yiraahdo healthy center ma leh oo dadka bukaanka la geeyo oo mursooyinka la geeyo oo caafimaadka ah ma lahan waa u baahannahay waxaan ka codsanaynaa ururka Aragsan inay noo dhisaan MCH ama meel caafimaad xanuun badan waxa idin kugu qabto waa jidaayo waxa weeye gabaraan umuliyo oo aan baadiyo ugu tagay ama magaaladaba ku umliyay oo umul weyday oo aan qaadnay oo boosageynay ama se hadayno basii soconno intaan sii soconay jidka ku dhimatay oo aan muddo badan joogay oo aan ka shaqeynayay dhibaatada ugu badan oo ka dhacda waxa weeye waa anemic oo xaaladda ugu badan oo dadku ay ama dumarku marka ay xaaladda pregnancy ay ku jiraan ay ku imaanayso haddana aysan wax health center ama health boss uusan ka jirin intaasi kadibna waxaan rabnaa in aanu u gudubno deegaanada la yiraahdo Karimo soo jeeda waxaanu rabnaa ugu horeyn in aan tagno magaalada Dawaar oo Unuun u jirta 19 kiiloomitir sidii hore ayaan xogta ka qaadanaynaa Karimada soo jeeda xogtana waxaan ka bilaabi doonaa Dawaar waxaan ku xijinaynaa Qaanlaaye Dhaankadus oo labaduba waxay isku jiraan 5 kiiloomitir laakiin Dawaar iyo Qaanlaaye waxay isku jiraan 4 kiiloomitir dhamaantood si isku mid ah ayaan xogta caafimaad ee deegaanka ka jirta uga qaadanay inta kadib waxaan doonayaa horta awalan waxaan soo dhaweynaynaa oo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa ururkan dhaqaatiirta Aragsan ayaanu soo dhaweynaynaa oo noogu yimi kormeerka oo qiimeynaya arrimaha caafimaadka oo meesha ku jira runtii si weyn baanu u danaynaynay ururka socda arrintan oo kale wali ma aanan arag wax ka socda arrimo caafimaad oo arrintan oo kale u ololeynaya ma aanan arag idinka ka hor meesha tan haddii aan warbixin yar ka dhiibo halka hadda aynu ku sugannahay waxaa la yiraahdaa Tuulo Dawaar waa deegaan ka kooban miyi iyo tuulo tuulada tan
sidaad ogtihiin hadda waxaa ka socota hawl meeshan aynu ku sugannahay waa iskuul loogu talagalay dhalinyarta iyo waayeelkaba inay dadku wax ku bartaan intay fool qaaday aanu ilmihiisa aan uga sugaynay ilmi inta kale inta madaxa kaliya yimi inta kalena sayada ku koob oo ka iman weyday ayaan lala cararay gabarmihii ilmiina inta meeshii ku meeday caloosheeda ku meeday jidka inta ay madaxii inta yimi soo nool bu soo dhacay inta kalena waa ku dhagay ma hadda labaad waxa iska leh teamkan Aragsan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waan idin soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada minanku waa minankiini deegaanku waa deegaankiini dadkuna waa dadkiini inta bacdigeeda waxaan u gudbayaa inaan istul taago rabaa koow ama laba ka sheego baahiyaadka deegaanka anoo waxaan u baahanahay waxa weeye meeshaan aan joognaa isbitaal male imseej male kiniin male dawo male afaraan saac dadku waxa weeye xawleed waa ku umuleysa waa ku dhagbaxayaan waa ku xanuunsanayaan waxa weeye daawo male in wax noo qabta marna waxaan u mahadcelinayaa ururka samafalka Aragsan wax badan waqti iyo sarfe iyo kharash ku soo baxshay inay noo yimaadaan inay ogaadaan xaqiiqada baahida jirta oo ka jirta deegaamada gobolka Bari aad baan ugu mahadcelinaynaa na soo qaabilay soo fariistay haddana la jooga intaa kadib markaan ka hadalno baahida deegaanka anagoo ah odayaasha deegaanka Dhaankadus baahiyaha ka jira waa baahiyo fara badan lama tira koobi karo laakiin hadda baahida qoladaani waxa ay ka socotaa waa hal mabda waa samafal caafimaad kama jiran horta markaan halkaan naga wareysataan in wax la arrimo bulsho haba u yaraatee ilaa sida Puntland kama jirin dawladda qaran Soomaaliya si aad bareen maba soo gaarin madaa yaraahdo dambi ma waxa weeye waxaan ka hadlayaa muhiimad naga noo gaaro oo dhinaca dumarka ah anigu waxaan ahaa bulshooyinka dumarka qala oo tola oo maxaan ku sheegay ilmuhu markuu ku qalloocdo maanaha jeexitaanka toliinka waxaan ku tolaa qalab ma helo waxaan ku tolaa irbad iyo dun waxa weeye galoofiyo ma haysano tan dharkaan ku tolaa makiinad baan ku jeexaa waxa weeye wax badan baa jira oo ila kulmay oo ibidi ku raagtay oo aan gacmeeyay oo anigoo aan galoofiyo wadan bacaha xayxayga ah oo maxaan saaxiibayaal weli waa uu socdaa safarka iyagu waxaa dhici karta in aad ku daashaan safarkan dheer laakiin waxaan ka shaqaynaynaa arrimaha bulshada waxaan u kuurgalaynaa xaaladda aadka u adag ee deegaanada aan ka soo sheekaynay annagoo diiradda saarayna caafimaadka waxaanu ku soo laabanay isla wadadii oo aan horay u marnay waxaan aadnay dhankaas iyo magaalada Ceelgaal oo dawaar u jirta 35 kiiloomitir waxayna magaalada Boosaaso u jirtaa Ceelgaal 355 kiiloomitir waa halkii aan ka soo kicitnay waxaanu nimi xilli galabnimo waxaan rabnaa haddii aan xogta caafimaad ee ka jirta aan helno in aan caaway halkan ku hoyano waana meesha uu safarka iyagu ku eg yahay saas loo warbixinayo ku doodo marka waxaan meel caafimaad gobol baan baahannahay hadal muuqda maalin kasta marka waxaan ku saabsanaynaa meel caafimaad gaari sidoo hore dadkooda loo wareysan jiray inay loo wareysan waxqabadkooda loo muujiyaan marka annagu meel caafimaad dadkina habeen hore u dhameystay ilmo yaro halkan habeen socontay intaan meel caafimaad la gaarin jidkii ka dhigtay waa habeen hore xaalada ka dhameysay
waxa weeye waxaa umulisooyinka oo intaa dumarka umulaya oo nooga dhinta caafimaad la'aan ilmaha oo nooga baxa caafimaad la'aan waxa weeye wax aanu awoodsanaa ma jirto awood ma lihin gaari weyn baan ku qaadnaa waxa jira kalamasi waxa jira wax la dhaho dhiig la'aan waxa jira wax la dhaho dayactir la'aan yaan aragsan ka codsanaynaa waxa weeye intaas waa aanu qabnaa waana caafimaad xumo waxaa noo geysatay MCA ma lihin dhakhtar ma helo xabad galoofa ma helo xabad irbada dhiig joojisa ma helo xabad kiniiniya ma helo waxa weeye markii wax naloo qabanayo aragsan waxaanu ka codsanaynaa in ay noo qabato MCA noo dhisto waxa weeye umulisooyinka noo tababarto dawana siiso caafimaad la'aan baanu nahay gaariga 1500 baana la kaga kireeyaa aneebayaan dumarka naga laysa kalamasi aan naga laaya waxa weeye daqiiqaad gaarigu intaanu doonayno yaa dumarkaba durbaba qofkii nafta deydaysaa waxa weeye bismillaahi rahmaani rahiim waxa weeye gaariga waxaan naga kireeyaa 1500 ninka naagta qabaahi ahmiyadeed male ma heli karo ninka naagta qabaahi ahmiyadeed male mana ooyaan heli karo reerkiisu ma hayo reerka gabadha reerkeedu ma hayo yaa aragsan hadaba saas baanu ka codsanay oo waxaan rabnaa haddii uu waagu beryo oo rabbi raalli ka noqdo in aan ku laabano degmada Balidhidhin oo iyana loo kuurgelayo xaaladda caafimaad ee ka jirta maadaama aan markii hore soo dhaafnay intaasi kadib waxaan rabnaa in aan bilowno wajiga labaad ee u kuurgelidda xaaladda caafimaad ee deegaanada bariga fog ee Puntland haddaba daawada la soco wajiga labaad ee barnaamijkan